waxaan akhrinayaa oo rabaa in aan isla fiirino kitaabka Matayos cutubka 5 ilaa iyo cutubka 7 ayaan rabaa in aan qayb aan ka dhigo waa wacdiga caanka ah oo la yiraahdo wacdiga buurta marka kiskis ayaan ka akhrin doonaa kadibna waan isla sharaxi doonaa magaca rabbigayga badbaadiyayga masiixa ayaan idin barayaa inuu qalbiga indhaha qalbiga idin furo si aad u garataan hadalkiisa nool oo mustaqbalkiina iyo rajadiina kaliya ah wacdiga buurta waa wacdi uu masiixa uga hadlayo sida ay tahay inay u noolaadaan dadka muuminiinta ah wacdiga buurta masiixa wuxuu isba bardhigayaa sharcigii Muuse oo sharcigii reer Israa'iil uu jiray Ilaahay iyo bini'aadamka oo dhan iyo sharciga masiixa oo sharciga Ilaahay oo runta ah sharciga waa sharci jir wuxuu ahaa maartay oo ku saabsan sharcigan laakiin waa sharci ruuxi ah dhammaantoodna waxay ka wada yimaadeen Ilaahay masiixa wuxuu dhahay umaana imaan inaan sharciga aan baabiyo laakiin waxaan u imid inaan wada yeelo masiixa kaliya ayaa sharciga oo dhan oofiyey asaga ayaa jirkeena oo kala soo qaatay oo sharciga ee oo dhan oofiyey hadalka Ilaahay kaliya ayaa sharciga oofiyey dhammaan sharciga oo dhan waayo masiixa dambi ma lahayn wuxuu kaloo ku oofiyey masiixa sharciga ee Ilaahay wuxuu ku oofiyey wuxuu leeyahay inta badan wuxuu leeyahay waxaad maqli jirteen waxaan idinku leeyahay tusaalahan waxaad maqli jirteen hazinaysanin ayuu meel ku leeyahay masiixa waa u tegi doonaa hazinaysanin maqli jirteen laakiin aniga waxaan idinku leeyahay ninkii qof dumar si damac u eega durba qalbigiisa ayuu kaga zinaystay waayo masiixa markii hore sharcigu wuxuu ahaa zinaysan naaga u tegi laakiin sharciga Ilaahay oo dhabta ah oo masiixa uu kaamilo waxa waaye naaga u tegin haddii aad maqli jirtay naaga u tegin Ilaahay agtiisa waxay ka tahay haddii naaga qalbigaada ka fiiriso oo niyadaada ka damacdid waxaa ku xadgudubtay sharciga Ilaahay marka sharciga Ilaahayna qofna ma fulin karo xataa dadka masiixiyiinta sharciga Ilaahay ma fulin karaan haddii ayan ruuxa quduuska hagayn haddii uusan ruuxa quduuska hagayn waayo anaga dhammaanteen bini'aadan dambiilayaal nahay waxaan dadka kale uga duwanaa anaga waxaan haysanaa ruux eebe oo nagu dhex nool ruuxa quduuska ayaa na daahirinayo tartiib nooga yeelaya inaan samayno sida uu Ilaahay doonayo marka idin aqriyo wacdiga buurta cutubka 5 aayadda 3 ilaa iyo waxaan aqrinayaa aayadda 12 rabbiga badbaadiyaha masiixa wuxuu leeyahay waxa barakadaysan kuwa xagga ruuxa ka masaakiin ah waayo boqortooyada jannada iyaga leh waxa barakadaysan kuwa baroorta waayo waa la qalbi qaboojin doonaa waxa barakadaysan kuwa camal qabow waayo dhulkay dhaxli doonaan waxa barakadaysan kuwa xaqnimada u gaajaysan oo u haraadsan waayo way dhergi doonaan waxa barakadaysan kuwa naxariista leh waayo waa loo naxariisan doonaa waxa barakadaysan kuwa qalbiga ka daahirsan waayo Ilaahay bay arki doonaan waxa barakadaysan kuwa nabadda ka shaqeeya waayo waxa loogu yeeri doonaa wiilashii Ilaah waxa barakadaysan kuwa xaqnimada awgeed loo silciyo waayo boqortooyada jannada iyaga leh waad barakadaysantiin goortii la idin caayo oo la idin silciyo oo wax walba oo xun oo been ah la idinka sheego aawaday farxa oo reereeya waayo jannada abaalgudkiinu waa ku weyn yahay waayo sidaas ay u silcin jireen nabiyadii idinka horreeyay masiixa halkan wuxuu ka hadlayaa barako rabbiga halkan wuxuu ka hadlayaa barako barakadaasna waxaa iska leh kuwa hadalka Ilaahay uu ku socdo ee barakadaas iska leh aayadda 3 marka hore wuxuu leeyahay waxa barakaysan kuwa xagga ruuxa ka masaakiinta waayo boqortooyada jannada iyaga leh miskiinimada Ilaahay agtiisa miskiinimada kama aha sida anaga u naqaano sida bini'aadamka qofka lacag haysta iyo qofkan lacag haysan qofkan lacag haysan waxaan dhahnaa qofkan waa miskiin waxa ma haysto miskiinimada Ilaahay waxa waaye qofka inuu qalbiga miskiin ka yahay oo ruuxa uu masaakiin ka yahay oo ruuxa faqri ka yahay Ilaahay u baahan yahay qofkaas inuu Ilaahay u baahan yahay oo ruuxda uu faqri ka yahay uu leeyahay oo xaqnimada Ilaahay uu doonayo qofkaas inuu helo ruuxda marka qofka uu miskiin ka yahay oo ruuxdiisa ee la jirto macnaha damaca inuu Ilaahay garto ama xaqnimadiisa oo garto masiixa wuxuu leeyahay kuwaas ayaa boqortooyada jannada iska leh kuwa xagga ruuxa ka masaakiinta ah kuwaas waa kuwa Ilaahay ereygiisa aaminaya waaye kuwaas ayaa boqortooyada jannada iska loo leeyahay
way ruuxda eebe markay qofka ay soo gasho ruuxda eebe markay qofka soo gasho qofkaas gudaha wuxuu ka noqonayaa qof miskiin ah gudaha qof miskiin uu ka noqonayaa qofkaas dabeecadda hore oo markii hore adigoo markii au imaanaysa masiixa dabeecadii aa lahayd oo dhan masiixa ayaa kaa bedelaya si tartiib uu kaaga bedelayaa ilaahay ruuxiisa masiixa iyo ereygiisa qalbigaada markaa wuxuu ka dhigayaa qalbi miskiin ah oo xagga ruuxda kuwa ka masaakiinta boqortooyada jannada iyagaa leh ayuu leeyahay masiixa boqortooyada jannadana annaga camal aan shaqaysanay marnaba kuma gelayn waxaan ku gelaynaa nimcada eebowna siiyey oo ereygiisa nagu siiyey haddii aan rumaysano aayadda afraad waxay leedahay waxaa barakadaysan kuwa baroorta waayo waa la qalbi qaboojin doonaa kuwa baroorta ayaa barakadaysan kuwa baroorta oo ma ahan oo u baroorta adduunyo ma ahan ama qabyaalad u baroorta ama wadaniyad u baroorta ama waxyaabo kale u baroorto kuwa baroorta waa kuwa ilaahay u baroorto kuwa ilaahay u ooyo oo doonista ilaahay u ooyo oo dembiyo intay ka dhacaan baroorto oo ilaahay ku baroorto wuxuu leeyahay kuwaas waa la qalbi qaboojin doonaa hadalka ilaahayna waa hadal nool wax walba oo masiixa yirine waa run way dhacayaan marka wuxuu leeyahay kuwaas waa la qalbi qaboojin doonaa kuwa baroorta oo dembiyadooda ka calool xun oo baroorta oo markii la silciyo oo masiixa dartiis loo silciyo baroorta oon aarsanin oo ilaahay barya mar walba oo ilaahay ku baroorta kuwaas wuxuu leeyahay masiixa waa la qalbi qaboojin doonaa waayo annaga markii aan duniyadan ka tagno boqortooyada ilaahay aan galno ilaahay maalintaas sida kitaabka muujinta ku qoran ilaahay wuxuuna leeyahay ilin walbo indhihiinna waan ka tiri doonaa oo waxyaabihii hore ma xasuusan doontaan marka si kasta oo qofka masiixigaa silac oo adduunyadan ku maro ama rafaad iyo dhibaato ku maro waa la hubaa boqortooyada jannada markuu galo waxaasoo dhan sooma xasuusan doono masiixa wuxuu leeyahay aayadda shanaad waxaa barakaysan kuwa camal qabow kuwa degan oo camal qabow waa ay dhulkay dhexli doonaan kuwa camal qabow dhulkay dhexli doonaan waxaanoo dhan wax oo bini aadam uu samaynayo ma aha waxyaabaan masiixa uu barakadan uu sheegayo wax annaga aan samaynayno awooddeena aan ku samaynayno ama inaan annaga aan kala fiicannahay aniga aan hebel ka fiicanahay hebelna adiga ka fiican yahay maahan ama heblaay ay ka fiican tahay maahan kuwa ereyga eebbe aqbalo oo ruuxda ilaahay helo kuwaas ayaa waxyaabahan samaynaya camal qabow meeshaas ayuu ku imanaya waayo ruuxa quduuska hadiidaha ruuxa quduuska markuu rabbiga ku siiyo waa qaboobi ayaa helaysaa markaas wuxuu leeyahay masiixa marka dadkan wax u ballan qaadayo waa dadkii ilaahay uu doortay wuxuu leeyahay marka waxaa barakadaysan kuwa camal qabow waa dhulkay dhexli doonaan waxaa barakadaysan uu leeyahay kuwa xaqnimada u gaajaysan kuwa camal qabow dhulkay dhexli doonaan oo dunidan marka eebe maalinta ugu dambaysa markuu ilaahay dunidan iyo shirkeeda oo dhan uu baabi'iyo duni cusub ayuu ilaahay noo abuuri doonaa kuweena muuminiinta ah ilaahay ayaana la heli doonaa dhul quduusa ayaan dhexli doonaa marka masiixa wuxuu leeyahay waxaa barakaysan kuwa camal qabow oo ruuxda ilaahay ay ku dhex jirto oo ereyga ilaahay aqbala kuwaas ayaa barakaysan waayo dhulkay dhexli doonaan dhaxal aan dhammaanayn oon baaba'ayn oo aan nijaasoobayn sida kitaabka ku qoran ayay heli doonaan kuwa ereyga eeba aqbala oo camalka qabow wuxuu leeyahay masiixa aayadda lixaad waxaa barakaysan kuwa xaqnimada u gaajaysan oo u haraadsan waayo way dhergi doonaan masiixa wuxuu ballan qaadayaa xaqnimo qofkii u gaajaysan oo xaqnimada ilaahay raadinayo inuu dharki doono ilaahay ayaa ku ballan qaadayo ama noo wada ballan qaadayo wuxuuna leeyahay way dhargi doonaan uu leeyahay kuwa xaqnimada u gaajaysan kuwa wax kale aan u gaajaysnayn oo damaca jirkooda inay dharjiyaan aan u gaajaysnayn oo aan u gaajaysnayn inay xumaan sameeyaan oo aan u gaajaysnayn inay dad dulmiyaan oo aan u gaajaysnayn inay dad dilaan laakiin waxay u gaajaysan yihiin xaqnimaday u gaajaysan yihiin kuwaas ilaahay wuxuu ballan qaadayaa wuxuu leeyahay way dhargi doonaan kuwaas halkan barakooyinkan oo dhan waa ballanqaad uu rabbiga ballan qaadayo waana wax run oo dhacay waxaa barakadaysan uu leeyahay kuwa naxariista leh waayo waa loo naxariisan doonaa ilaahay waa naxariiste dadka muuminiintaana wuxuu ka doonayaa inaan annagana sidaasoo kale naxariis lahaan kitaabku wuxuu leeyahay naxariis u lahaada sida aabbihiina jannada ku jira uu naxariis badan yahay masiixa saasuun dhahay marka kuwa naxariista leh rabbiga wuxuu u ballan qaadayaa wuxuu leeyahay waa loo naxariisan doonaa kitaabka waxaa ku qoran
naxariistu way ka faantaa xukunka kitaabka meelo kitaabka waxa uu qoran naxariistu way ka faantaa xukun kuwa aan naxariista lahayn ilaahay naxariis kama helayaan ayagana waayo ilaahay wuxuu dhahay qiyaastii wax ku qiyaastaan ayaa lagu qiyaasi doonaa wixii aad weelka ku beegta ayaa lagu beegi doonaa ilaahay wuxuu leeyahay dadka u dhaafa dambiyada hadday ka galaan cafiya waa idin cafin doonaa siiya waa idin siin doonaa waa qiyaasta ku qiyaastaan ayaa lagu qiyaasi doonaa rabbigu wuxuu leeyahay kuwaas naxariista leh waa loo naxariisan doonaa leeyahay naxariis ay heli doonaan kuwaas naxariista leh oo dadka u naxariisto naxariistu waa waxyaabaha aan ku raacno waa ilaahay oo ilaahay aan uga dayno ilaahay waa naxariiste qofka xun iyo qofka wanaagsan masiix wuxuu dhahay eebaha qaadirka ah uu soo diyaa roobka iyo qoraxda uu soo bixiyaa kuwa xun kuwa mahadnaq iyo kuwa aan mahadnaqinba labadaba marka rabbigu wuxuu leeyahay sida aabiina jannada ku jiro u naxariis badan yahay haddaa u naxariisataan waa barakaysantihiin uu leeyahay waayo waa leedin naxariisan doonaa rabbigana markuu dhaha waa barakaysan tahay waxaa barakadaysan markuu ku leeyahay barakadaas waa barako ruuxi ah iyo barako dhinac walba ah ilaahay markuu ku dhaho waa barakaysan tahay barako waa ziyaado in wax walba aad ziyaado ka heshid inaad barakaysanaayd noloshaada dhan aad barakoobayso cimrigaada barakoobayo waqtigaada barakoobayo waxaa barakoobayo shaqadaada barakoobayso lacagtaada barakoobayso noloshaadana carruurtaada iyo ehelkaaga dhan aad barakoobayo marka rabbigu wuxuu leeyahay waxaa barakadaysan kuwa naxariista la waayo loo naxariisan doonaa aayad sideeda rabbigu wuxuu leeyahay waxaa barakadaysan kuwa qalbiga ka daahirsan waayo ilaah bay arki doonaan kuwa oo ereyga ilaahay aqbalo oo qalbigooda daahirka laga dhigo oo dhiigga masiixa lagu dhaqay oo ruuxa quduuska uu ku dhex nool yahay kuwaas ayaa qalbiga ka daahirsan kuwaasna wuxuu leeyahay ilaah ayay arki doonaan kuwaasna ilaah ayay arki doonaan waxyaabahan oo dhan barakadan iyo masiixa marka uu leeyahay kuwa waxaas ayaa waxaas heli doono annaga awooddeena waxaas kuma helayno waa inaad taas ogaatid waaye annaga awooddeena taas kuma helayno qofka markuu masiixiga noqdo masiixa ayaa wuxuu siinayaa awood marka ugu horreysa masiixa ayaa dhiiggiisa wuxuu kaaga dhaqayaa dembiyadaada oo dhan iyo wixii qalbiga kaaga jiro oo dhan marka labaadna markuu ku dhaqo masiixa wuxuu kuu soo dirayaa ruuxiisa quduuska ruuxaas quduuska ayaa wuxuu naga dhigayaa sida ilaahay uu doonayo inaan noqono sida ilaahay uu doonayo inaan noqono taasna tartiib ayay u dhacaysaa oo qofka markuu ereyga ilaahay mar walba aqrinayo oo masiixa uu la socdo oo ilaahay si dhab ah u aamino qofka waxyaabahan dhan uu helayaa marka kuwa qalbiga ka daahirsan waa kuwa qalbigooda lagu meeray dhiigga masiixa oo ruuxa quduuska uu qalbigooda ku jiro oo ilaahay ruuxdiisa ay ku dhex jirto kuwaas ayaa qalbiga daahirka noqon karo haddii kale nijaas anagoo nijaas ahayn hadduu ilaahay ku daahirin daahir ma noqon kartid wanqalka ilaahay uu kuu soo diray hadiyadda eebbe uu kuu soo diray haddii aadan aqbalinne daahir weligaa ma noqon kartid biyo kasta isku dhaqaq marka waxaa barakadaysan oo leeyahay kuwa qalbiga ka daahirsan oo qalbigooda lagu meeray dhiigga masiixa ilaah bay arki doonaan aayadda sagaalaad waxay leedahay waxaa barakadaysan kuwa nabadda ka shaqeeya waayo waxaa loogu yeeri doonaa wiilashii ilaah kuwa nabadda ka shaqeeya kuwa faafiya injiilka nabadda masiixa oo amiirka nabadda ah kuwa ka shaqeeya nabaddaas oo dadkana nabadgeliyo laga nabadgalo dariskooda ay ka nabadgalaan dadka ay la nool yihiin ay ka nabadgalaan xaasaskooda iyo nimankooda ay ka nabadgalaan carruurtooda ay ka nabadgalaan dadkooda oo dhan ay ka nabadgalaan bini aadamka o dhan uu ka nabadgalo nabaddaasna waxaa lagu heli karaa marka nabadda masiixa ay qalbigaada degto nabadda masiixa iyo injiilka nabadda marka aad ka shaqaysid oo shaqadaada ugu weyn iyo waxyaabaha aad marka hore hormarinaysid oo wax walba aad ka hormarinaysid ay tahay inaad ka shaqaysid nabadda kuwa nabadda ka shaqeeya waxaa loogu yeeri doonaa wiilashii ilaah waa nabadda masiixa ayaa nabadda ah masiixa marka qofka ka shaqeeyo iyo injiilkiisa nabadda kuwaas waxaa loogu yeeri doonaa wiilashii ilaah qofka markuu masiixa qalbiga ka dego wuxuu ka shaqaynayaa nabadda masiixa ayuu ka shaqaynayaa markaas ayuu rabbigu wuxuu leeyahay kuwaas wiilashii ilaah ayaa la oran doonaa waayo wiilkii ilaah haddaa noqotid ama gabadhii ilaah noqotid waxaa weeye boqorrada iyo saydyada rabbiga masiixa ayaa aabbaha ah isaga ayaa aabbaha ah ilaahay ayaa aabbaha ah marka ilaahay haddii uu aabba ku noqdo waxaa weeye waxaa u baahan tahay malaha nolosha oo dhan waa haysataa
آيات سمناد وحولية وحبر كذا سن كوا حقني ماذا أودت لوس العيو وهي بقرطوي ذا جنة إيجاله ربي وحولية كوا حقني ماذا أودت لوس العيو أيا بركة سنو ليه بقرطوي ذا جنة إيجاله حقني ماذا مسيحة إلهي إرجع سكليا حقه إلهي إرجع سمرك أقبلنا سيد عادي جا ولقيت بودي عجرتي ربي جا إرجع أي بمرك والدنيا دي مت وجربنا صو نقضي ضدك ولا نحن نقضين كجيس أيه نقضين ضدك أنت ذا بدن أنت أو دورتي أيه كبت بعدي ضدك مركا وحوي حقني ماذا والو سلعين دونا وأنا بقول كأني ربي جا مسيحة جيرك مركو الدنيا كيمت أسيال السلعين كحول أنا قاعد يسلعين إذن كانوا يسلعين دونا أنا يكتب كل هاي مركا كوة إن مؤمنين تولى هذا وقفك مسيحي هذول نقضوا ولا سلعين دونا سلعة سكلي ما هني وقفك سومالي بس هي ضد كيسة يكجيسي هنا ما ودمك له مسيحة لقينا هبي أو كرشة حتى وقفك مسيحي عادي جا وهدور دمعينه مسيحي راحوا وحلاقيها حتى إنه يكون سلعين كوة isku sheegay masiixiin inay ku silciyaan laga yaabo ku silciyaan laga yaabo ku caayaan wax xun ka sheegaan ku dhibaan hadii awoodaan ku dilaan marka masiixa wuxuu leeyahay wax kuwaas ayaa barakaysan xaqnimada awoodeed hadii lagu silciyo oo muumin masiixi ah tahay gabar muuminada masiixi ah tahay ama wiil muumin masiixi ah tahay waa barakaysantiin rabbiga silcas yarkaan gaaray waxa ka muhiimsan barakadiisa ربي بركيسة كم يمشي وحوليه واحد بركيسة كوا حقنا ما يودي الله سلعي واي بقرطوي الجنة أيقال حقنا ما مركي لو سلعيه نلقو سلعيه إيه وحنا بلنقاضي وحوليه بقرطوي الجنة ذيك أسكله هذيك أسكله هنت هذا بقرطوي الجنة وبلنقاضي إلهي هذه الكيسة بين مشاو إلهي واحد والبو بلنقاضي ويدعيا مركا هدي إلهي رميسن تهاي ومؤمن مسيحي تهاي سلعة واحد باتوا ماركيس مركل وسلعيه أو لوعايو أو واحد والبوح من الأشياء واحد وماركيس مركل ربي يا بلنقات كسنتينا وحلوية هاي وحبر كذا سن كو حقنا مذا هذا السلعي واي بقرطوي الجنة دي قال أو بقرطوي أندمانين وبابين ونجاسوبين أي ربي عنو كذي مركل الدنيا أنا كتير أنت الدنيا جوجنا هدي ربي قام مسكتها واحد والبوح كل شيء قد بنادو وقت طلاب سنة ربي قام ودس كسينايو ربي مر والبنا ليه يعني جاي عمله هقول لي عنا وحيابها سكلا فيرنين وحيابها سكلا فيرنا ما أنتي وبيتر دونت أيوة صار ربي وهبيني مؤيد وبدأ أسوي كدور سعود بيتر رسول بطرس أيوة وحولها هاي سيدا وقتين وحولها هاي ويعرف سيدا مركوا روحي ملينا روحاني نتاوحلا وحمش ربي قال مركلا هذا العداني وأسوي بدأ كدور سعود بطرس مركوا في رداء هذيك تاي أمر إنام بدأ كدور سعوداني ربي وحولها صباح بيتر وسوي استاجه وبدي وقدر سعد مركو بدأ قدر سعد هيرر أيا كعي هيرر كي مركو فيري أيو قوسي ربي وحولها مركا محاول شكل شيء رومستيريو ربي مرة البحن ليه هيرر كهررها يدبتوين كهررها فيرين أنا يسافر ربي مركا أسجع فيرسيد وحول بوا كله وكجود بيسا ربي جاي كل جرا ربي مرة البحن ليه شيطان كوحدونيا و لبح عيا يعملوا قيلنا مركهرها وكقيلنا هكبقين هرتاد وسع ربيجا أني وحكله صفير مركا وحوليه كو حق نمد أود الله السلعيه أي بركة سواء الجنة دي قال مركا الشيطان كأي أكدم بيه إنه نسلعيه ونرجع حقليه وعفسين وعوره مركا هرها بوقي قيلة ذاك الجرو عايدة وحيابها سلن وحسن رجال خوسين هؤلاء دناها كراع ربيجا فيري ربيجا مركا فيرسيد أسرع أي واحد والبربيجا نسيناه بقرطوي الجنة دي كاس كلولي بقرطوي الجنة ربيجا مالك لو حكشة بقرطوي الجنة بحداي وين كل حجرتها تذكر المؤمنين تا إلهي الروح دي سنة وصدير مركا مسيح آمنت وقفك مسيح وآمنه روح قدوسك وإيمانا يقفك روح قدوسك لو بابتزاي روح قدوسك أي قفك للجراي بقرطوي الجنة مركا أنا قاعد أسكله بقرطوي الجنة إذنك أي قالوا ده كوس والله سلعي ويوقف واحد سلعنا يو شيطانك مركا مسيحي تاي شيطانك وقف وحو نعبيها هذه جماعة أنا طبعا نعبيها لكن شيطانك وحو نعبيها واحد نقول حجروا نعبيها ربي روحي سنقول نقول حجرته روح ذا ربي جاي من نعبيها شيطانك سداس آياتك مسيحيين تا لو نعبيها
oo weligeedba loo silcin jiray saasi tahayna ilaahay wuxuu dhahay ma istaajin karaan dadku ma istaajin karaan ma joojin karaan in ereyga ilaahay uu faafo oo dadkuna ay badbaadaan ku ilaahay ugu talagalay aayadda 11 waxay leedahay waxa barakadaysan waad barakadaysantiin goortii la idin caayo oo la idin silciyo oo wax walba oo xun oo been ah la idinka sheeg aawaday rabbiga wuxuu leeyahay barakaaba dushiina ahaatay markii la idin caayo oo la idin silciyo oo wax walba oo xun oo been ah la idinka sheeg rabbiga wuxuu leeyahay wax walba oo xun oo been ah markii la idinka sheego markaas ayaa barakada aad haysataan waad barakaysantiin marka masiixa dartiis hadii lagu caayo waa barakaysantaa masiixa dartiis hadii lagu silciyo waa barakaysan waan lagu silcinaya waan lagu caanay hadii aad masiix dhaba tahay dadkan waxa ay caanayaan adiga maaha dadkan waxa ay caanayaan waxa kugu dhex jira waxa kugu dhex jira ruuxa quduuska kugu dhex jira masiixa kugu dhex jira masiixa kugu dhex jira ay dadkan caanayaan ay dadkan ay rabaan inay dilaan ay waxna qsiin waayo rabbigu wuxuu dhahay kan annaga nu jiro waa masiixa ayaa ka kuwiya midka dunida ku jiro waa shaydaanka marka dadka qofka masiixiga ahaan shaydaan ayaa ku dhex jira shaydaan ayaa ku adeeganaya marka sidaas ay kala duwanaashada meesha ka imaanaysa kala duwanaashada inaan kala fiicanahay maan qofka masiixiga ahaan qofka masiixiga kala ma fiicna bini'aadan ahaan dhamaantii waa isku wada mid laakiin waxa lagu kala duwan yahay qofna waxa ku dhex jiro ibliiska ku dhex jiro oo ka dhex shaqeysanayo qofna waxa ku dhex jira rabbiga oo kuweena rabbiga aaminsan oo rabbiga ayaa naga dhex shaqeynaya marka wuxuu leeyahay waa barakaysantiin uu leeyahay taas balaqaad waa barakaysantiin goortii la idin caayo oo la idin silciyo oo wax walba oo xun oo been la idin sheego marka maalin walba la caayo la silciyo wax walba oo xun oo been laga sheego naloo hanjaa maalin walba la afar la tisca ma dhaafaysan wal dilaa inta garaan marka baraka ka sii qaadaysa waxaas baraka ka sii qaadaysa mu'min masiixi hada tahay waxaas waxa ka sii qaadaysa barako rabbiga wuxuu leeyahay marka farxa oo reereey marka waxaas idin ku sameeyaan meesha ka xanaaq leed oo ka arsan leed oo dhiileed maana asaas leedahay oo qofkii aad laga yaabo shaydaanku rabbiga wuxuu leeyahay shar ha ku gudina shaydaanka marka waa sida uu rabay qofkan shaydaanku adeega wuxuu ka rabaa kaliya in adiga sidiisa oo kale noqotay booskiisa aad timaad shaydaanka markaas wixii uu rabo ka hay marka rabbiga wuxuu leeyahay shar ha ku gudin farxa oo reereey leeyahay marka waxaad idin ku sameeyaan farxad la badboodo ka arsanina u duceeya wanaag u sameeya kaliya marka waxaas la idinku sameeya farxad riyaaq farxa oo reereey leeyahay sababtaas waxa waaye jannada abaalgudkiina waa kuweyn taas ayaa tusaale waxay u tahay in rabbiga uu ku doortay waxay tusaale u tahay waa lagu nacayaa rabbiga daradiisa lagu nacayaa waa haddii masiixa dhab aad tahay oo rabbiga uu kugu dhex jiro rabbiga dartiis ayaa lagu nacayaa marka ha ku qalbi jabin waxaas ha ku qalbi jabin laakiin farxad waa inaan kasii qaadno rabbiga wuxuu leeyahay farxa oo reereey waaye jannada abaalgudkiina waa kuweyn sababtaa wuxuu noo sii sheegayaa marka rabbiga waxyaabahaas hadda dhacaayo nagu samaynayaan in weligood bay samayn jireen kuwa ibliisku adeego rabbigu wuxuu leeyahay waayo sidaas u silcin jireen nabiyadeedii ka horreeyey rabbiga dadkii uu soo diray masiixa intuusan dunidan imaan oo jir ahaan dunidan u imaan nebiye ayuu markii hore soo diri jiray ilaahay ergiis wuxuu soo dhiibi jiray nebiyo ruuxa quduuska nebiga u imaanayo ruuxa quduuska oo ilaahay waxyiga sidaas uu keenayo sidaas ayuu dadku la hadlaya laakiin kitaabka cibraaniinta sida ku qoran wuxuu leeyahay laakiin maalmaha ugu dambeysay ilaahay wuxuu nagula hadlay wiilkiis nebiyadii naga horreeyey marka annaga waxaan ayaga helin ayaan annaga haysanaa waa annaga rabbiga ayaa noo yimidba dunida ayada marka nebiyadaas naga horreeyey dhibaatadaas ay ku samayn jireen hadda kitaabka cibraaniinta waxay leedahay ilaahay wuxuu waagii hore siyaabo badan oo kala duwan awoyaashan kula hadlay nebiyadii reer bani israa'iil ka hadlaya markii hore nebiyada waxay ka imaan jireen reer bani israa'iil rabbiga qoyskaas ayuu doortay reer bani israa'iil inuu si uu ilaahay ulajeedkiisa masiixa inuu ka dhasho farcankii ibraahim oo sidaas uu badbaadiyaha dunida dhan ku noqdo ereygiis marka cibraaniinta aayadda koowaad waxay leedahay ilaa aayadda saddexaad waxay leedahay waxay noo sheegaysaa nebiyadii naga horreeyey qaabka ilaahay ula hadli jiray iyo markaan ugu dambeysay waxa annaga aanaysan ilaah wuxuu leeyahay waagi hore siyaabo badan oo kala duwan ay ilaahay wuxuu waagi hore siyaabo badan oo kala duwan awoyaashan kula hadli jiray nebiyadii laakiin maalmaha ugu dambeysay wuxuu nagula hadlay wiilkiis uu ka dhigay kan wax walba dhaxla kan uu dunyooyinkan ku sameeyey
oo isagu waa dhalaalka amaantiisa iyo akaanta ahantiisa oo wax walba wuxuu ku hayaa ereyga xooggiisa oo goortu daahirinta dadka dembiyadooda sameeyay dabadeed ayuu wuxuu fadhiistay weynaha xagga sare midigtiisa rabbigu wuxuu leeyahay nabiyada idin korriye waqtigan oo waxyiga u imaan jiray maanta laakiin eebba wuxuu nagula hadlay wiilkiisa nagula hadlay ereygiisa oo wiil annagoo kale oo ka soo dhigay qof bini aadan ayuu nagula hadlay oo na dhex joog ilaahay waa na dhex joog ilaahay wiilkiisa ayuu isku muujiyey maalmaha ugu dambeysada wuxuu nagula hadlay wiilkiisa uu ka dhigay kan wax walba dhaxal erey ilaahay wax walba asaga dhaxal u leh kan uu duniyooyinka ku sameeyey ilaahay ereygiisa ayuu duniyooyinka wax walba oo jiro ku sameeyey ereygiisa ilaahay la mid ah kan uu duniyooyinka ku sameeyey oo isagu waa dhalaalka amaantiisa oo dhahay ilaahay ereygiisa waa dhalaalka amaantiisa iyo akaanta ahantiisa ilaahay ereygiisa asaga isku mid oo wax walba wuxuu ku hayaa ereyga xooggiisa oo dhahay oo goortu daahirinta dadka dembiyadooda sameeyay dabadeed ayuu wuxuu fadhiistay weynaha xagga sare midigtiisa masiixa markii oo ereyga eebe daahirinta dadka dembiyadooda markuu sameeyo isku talaabta lagu qodbay oo saddex beri mootanaa uu ka sare kacay awoodda ruuxa quduuska uga sare kacay samada ayuu aaday masiixa wuxuu fadhiistay weynaha xagga sare midigtiisa asaga oo wakiil noo ah anaga wadaad sare noo ah nebi noo ah rasuul noo ah saaxiib noo ah badbaadiyaheenna ah irideenna ah kabista cunayna ah nolosheenna ah sare kicidda noloshaan ka sare kacayna ah jidka iyo runta iyo nolosha ah iftiin noo ah masiixa marka wax walba ayuu noo yahay marka rabbigu wuxuu leeyahay farxa oo reereeya jannada awalgudkiina waa kuwan yahay sababtoo ah sidaas ayay u silcin jireen nebiyadii idinka horreeyey dadkii idinka horreeyey aniga aan soo diray sidaasay u silcin jireen oo leeyahay idinkana aniga ayaa idin diray rasuulladeedaa tihiin farriinwadayaasheeda ayaa tihiin marka waa idin silcin doonaa dunidu waa idin silcin doontaa marka rabbigu wuxuu leeyahay farxa oo reereeya markay waxaas dhahaan marka intaas aan rabaa inaan ku joojiyo wacdiga buurtana waxaan rabaa aan sii wado maalmahan nagu soo fool leh wacdiga buurta wuxuu ka kooban yahay cutubka 5 ilaa cutubka 7 waxyaabo badan ayuu masiixa uga hadli doonaa haddii masiix cusub aad tahay iyo haddii kale waa ku anfacaysaa wacdigaas marka la socod wanaagsan marka waxaan idinkaga tegayaa nabadda masiixa dhammaantiin dushiina ahaato ilaahayna waxaan uga baryayaa dadkeenna in ereygiisa daahirka masiixa uu ku badbaadiyo waayo masiixa runtii qof walba aadan oo dunida yimid uu u baahan yahay gaar ahaan dadkeena soomaalida aad iyo aad ayaa masiixa ugu baahantiin waayo waxay indhaha idin furo u baahantiin oo dhagaha idin furo oo qalbiga idin furo si aad ugu noolaataan nolosha istaashaan oo dhabta ah shaydaanka marka ka soo taga rabbiga wuxuu idin leeyahay kulligiina imaada kulligiina kuwiina hawshaysan oo culaabsan imaada waxaana ogaataa annagu awood aan malihin awood ama xigmad aan ku samayno waxyaalaheena malihin oo ilaahay aan ugu tagno ilaahay ayaa wuxuu leeyahay ereygaygaa idiin soo diray ereygaygaas ayaa iikin keeni kara aniga waayo kulligiin waa dambaawdeen dunida oo dhan way dambaawday rabbiga wuxuu leeyahay ereygayga qofkii aqbalo ma xukumna mana ceeboobi doono ilaahay agtiisa kuma ceeboobi doontid haddii aad masiixa rumaysatid laakiin haddaa camaladaada ama diintaada ama firqadaada aad rumaysatid oo masiixa aad ka geys noqotid ilaahay agtiisa xisaab aad u daran ayaa ku sugaysa marka barakada masiixa dhammaantiin dushiina ahaato soomaalida masiixiyiinta waxaan kula dardaarmayaa qof soomaali masiixi haddaad tahay masiixa nooma dooran annaga wasaqnimo nooma dooran masiixa wuxuu noo doortay quduusnaan qof soomaali masiixi haddaad tahay qof kale oo walaasha ama walaalka masiixi ah ku mashquulin ha dhibaataynin ama qof kaloo xataa muslim hataa ha aado ama qof kaloo ilaahay aaminsan aado wuxuu rabaa aado annaga masiixa nooma dooran inaan dad kale dabagalno inaan dad kale caayno inaan dad kale ku mashquulno masiixa wuxuuna dhahay annaga saxarka isha walaalka ku jira ha arkinu dhahay laakiin adiga dogobka ishaada ku jira fiiri marka aniga qof kale marka aan fiirinayo wuxuu igu muuqanayaa saxar igu muuqda ishiisa waayo aniga waxa nafteeda aan ku ogaaya ka badan waxa qof kale aan ku ogaa marka aniga dembiile ayaan ahay qof xun ayaan ahay waxaan ahay qof ilaahay hortiisa ku ceebaysan ayaan ahay haddii aanan masiixa micnaha aqbaleen dembiil ayaana marka rabbiga aniga dembiyadeeda oo dhan uu iga tirtira rabbiga marka wuxuu leeyahay rabbiga marka qof kale ha xukumin aniga oo dembiyada oo dhan kaa dhaqay oo dogobka ishaada ku jira fiiri marka hore aniga nuur wuxuu leeyahay rabbiga dogobka ishaada ku jira fiiri hebel iyo hebel kale adiga ha ku mashquulin iscafiya isku naxariista iswanaajiya ma ahan maantay
dad Soomaali masiixiinta maanta iftiin ayaa u baxay Soomaali masiixiinta rabbigaana doortay anaga wuxuu dhahay iftiinka dunida tiin 10kaas waxay aqoon doonaa 10ka xigo iftiinka dunida tiin marka masiixa kuma dooran adiga haddii masiix sheeganaysid haddii masiix tahayba masiixa kuma dooran inaa qof kale masiixi caaysid gabar kale walaasha masiixi inaa dhibtid wiil kale walaalka inaa masiixi inaa xakartid qof kale oo muslim xataa inaa dhibtid oo xakartid ma aha masiixnimadu ma aha xam iyo dhibaato iyo isku mashquul ma aha qofkan waxa way noloshaada waxa ku raaxaysan kartaa nolosha marka aad rabbiga la socotid dadkan aad jeclaatid dadka dhan aad jeclaatid qofna aadan maanta dhan waxa way adiga marka waxa isku furaysid waxyaabo badan isku furaysaa oo culaab dusha ka saaraysaa marka amaanta dhan hebel sayir maanta ay ku heshiis marka dhamaanteen waan leenahay daciifnimadaas waan leenahay laakiin rabbigu wuxuu leeyahay saxarka isha walaalka ku jira fiirin dogobka ishaada ku jira fiirin oo rabbiga mar walba u jilba joogso rabbiga iga tirtir xumaatooyinkan dadka oo dhan cafi dadka walaalada gaar ahaan dadka walaalada masiixiinta oo dhan waxa la rabaa inay ku wada noolaadaan nabad iyo isjacayl si masiixnimadu ay miro soo saarto rabbiga hadii kale waxaan noqonaynaa qof ninkii dadkii waxaan kala noqonaynaa dadkii u dhiibay talantiyaasha oo lacagta intuu dhiibo dhaawayniin soo noqonaya masaalka uu rabbiga soo qaatay uu midkii duugay wixii rabbiga markuu wuxuu leeyahay hadiyadaan si aduugin oo leeyahay hadiyaduna si rabbiga waa isjacayl waa isku naxariisasho waa iswanaajin waa farxad waa ina qofka walaalka masiixiga marka oo dhaco ina soo toosisid ina la talisid ina waanisid ina kitaabkooda akhrisataan ina isku duceysaan rabbiga qulubteenu arkay rabbiga wuxuu naga soo dhax saaraya markaas miro wanaagsan naga soo sida uu rabbiga rabna sidaas rabbiga wuxuu leeyahay marka wasaqnimo noomu dooran rabbiga noomu dooran inaan khamri cabno rabbiga noomu dooran inaan jaad iyo sigaar isticmaalno 24 saac rabbiga noomu dooran inaan dhilaysano rabbiga noomu dooran inaan xan iyo siyaasadaha Soomaaliya oo qashinka inaan ka shaqeyno iyo qabyaalad inaan isku kala qaybno waxaas inaan rabbiga kuma dooran marka masiixi hadaa tahay oo qof masiixi tahay markii hore u malinaysa masiixnimada inay noocaas tahay ana waxaan ku dhiilaa ka hurdada ereyga ilaahay mar walba aqriso ilaahay la soco hadii qof kale oo masiixi aad ahayn waxaan ku dhiilaa welcome ku soo dhawaad boqortooyada ilaahay ereygiisa la'aantiis marra la gelin kartid adoo ereyga ilaahay rumaysan ilaahay marra la gelin kartid waa ilaahay ereygiisa hadii lagu kala qaybiyo laba ilaah laga dhiganay khiyaano weyn kugu dhacday marka hadii aad doonaysid inaa rabbiga masiixa aqbashid waa aad arin u sahlan waa rabbiga anaga culaab dush naga mashaarin wuxuu dhahay wax walbo idinka aad awoodi weyseen aniga ayaa idin sameeyay waa hadiyad wax lagu baaqayo amal aad sameeysanaysid maahan wax dad kala dheertahay maahan rabbiga wuxuu ku leeyahay hadiyadaan qaado ereyga ayaa ku badbaadin karo hadaa rabtid baadiyaha Soomaaliya joog oo ku raac gel hadaa rabtid qof beerley oo beertiisa falanayo noqo mid taajir oo hanti loo ganacsada weyn oo guriga wax walba wax kala gudbinayo noqo hadaa rabtid qof dhibaataysan oo gabar booyasho oo guri ka shaqaysan noqo masaakiin naag ninkeeda oo dhibaataynayo noqo hadaa rabtid nin qoys isla nool xataa wanaag ku wada mar hadaa rabtaan ahaada mid Mooriyaan oo dal iyo dad baabiye noqo wadaad gacan ku dhigla ah oo umada maalin qarx iyo wax walba duugo masiixa kulligiin wuxuu idin leeyahay kale waxyaabahaas wuxuu rabaa masiixina ka toobad keentid oo asaga u qaratid oo dhahdid dambiila ayaan rabbiyow dhiigaada igu daahiri ruuxaada quduuskana si aan u noqdo qof dhala miraha adiga doonaysid inaad dhashid marka masiixa hadaa doonaysid inaad aqbashid uma baahnid qof gaal cadaan ina raadisid uma baahnid mid carabi ina raadisid uma baahnid qof Soomaali ina macnaha raadisid waa dabcan waa u baahan tahay inaad xiriir la samaysid masiixiin laakiin badbaadadaada waxay kugu xiran tahay qalbiga kitaabku wuxuu dhahay qalbiga hadaa ka rumaystaan afkana aad ka qirataan waa badbaadi meel walba oo Soomaaliya ka joogtid iyo tuulo walba joogtid iyo xaalad walba ku sugan tahay rabbiga maantay afkaaga hadaa ka qiratid qalbigaadana aad ka rumaysid rabbiga wuxuu ku leeyahay waa badbaadi waxaan gali doontaa ruuxa quduuska ayuu ilaahay ku soo diray ruuxiisa quduuska oo magaca ereygiisa lagu helo masiixa markii la rumeeyo ilaahay ruuxiisa quduuska markuu ku soo diray ayaa miro wanaagsan la doontaa markaas ayaa ilaahay waxa la yeelan doontaa xiriir aadan weliga ku riyoon dacaayadaha ay dadka ka fidinayaan masiixa oo dhan waxaas oo dhan dhig jila qawseen aniga nafteeda inay badbaado waan jeclahay wayna badbaado nafteeda aniga marka masiixa waxaan aqaanaa dhowr iyo waxaan aqaanaa 10 sano marka jid aan aniga hubin wuxuu yahay oo aanan ku soconin oo aan arkin nimcada iyo wanaagga ku jirta masiixnimada ma idin ku baaqay
marka masiixa waa barako masiixa waxa laga helaa nolosha weligeeda masiixa waxa ka helaysaa cafiska dambiga masiixa waxa ka helaysaa boqortooyada oo daa'imka inaad gashid marka dunida ka tagtid masiixa waxa ka helaysaa inta dunida joogtid inuu ducooyinkaada aqbalo wax walba oo masiixa aan weydiisto oo iga aqbalaa wax walba oo masiixa weydiisto sida doonistiisa ay tahay non ilaahay maan wax walba inuu ka aqbalaayo mar waxyaabo ilaahay wuxuu noo diidaa oo anaga aan dan noogu jirin marka ilaahay mar walba wuxuu leeyahay waxaad iga barisaan rumaysta in heshaan waa idin samayn doonaa marka waxaan kugu baaqayaa nimcadaas weyn oo wax loo dhigaa jirin masiixa waa nimcada waa jidka runta ah iyo nolosha weligeeda noloshaadana waxay ku noolaan doontaa farxad iyo reereen marka dunida ka tagtidna waxaa geli doontaa boqortooyo aan dhammaan doonin oo ilaahay agtiisa ala noolaan doonti ilaahay kama ballan qaadayo naago inuu meeshaas kugu diyaariyey khamri inuu kugu diyaariyey caan inuu kugu diyaariyey kama ballan qaadayo ilaahay wuxuu kaa ballan qaadayaa nolol daa'im ah oo ilaahay ala noolaanaysid oo ilaahay wuxuu dhahay waxaad ishaad arkin oo dhegtaada ay maqlin oo qalb bini aadan ay soo gelin ayaan idin diyaariyo dhahay ma ahan wax hadda lagu sheegaa caanaha xagga kaaga horreeyay sokor maaha ilaahay wuxuu dhahay waxaad arkin weligaa arkin oo qof bini aadan uu weligiis arkin oo maqlin oo qalbigiis xataa aan soo gelin ayuu ilaahay noo diyaariy marka waxaa malaynaysaa dunidan dembiga meerno ilaahay sidaan u habaysan ayaa aragtaa waxa ka dambeeya marka wax lagu sheegi kara maa qofka ku sheegi laakiin waxa ugu weyn waxa waaye inaad shaydaanka ka baxsatid gacantiisa oo gacanta ilaahay ku abuurtay ku dhacday gacanta ilaahay ku abuurtay ilaahay aaminka ilaahay naxariista badan ilaahay wanaagsanaha ah ilaahay jaceylka ka samaysan inaad asaga xiriir la samaysatid oo asaga aad soo hoosgashid oo asaga aad maalin walba la noolaatid ayaa mid ugu weyn ah oo asaga aad la noolaatid weligaa haddii kale taas ay ku sheegto waxa waaye cadowgaada ibliiska ah oo rabo inuu ku dilo oo rabo inuu ku baabi'iyo oo rabo inuu ku silciyo oo rabo inaad oysid oo rabo inaad barooratid oo rabo inuu ku baabi'iyo ugu dambeynna uu meesha rugtiisa ku jiida cadaabka daa'imka meeshaas oo aadan ka soo bixi doonin weligaa allah ilaahay marka maanta wuxuu ku leeyahay ii imaada intee ugu imaanaysaa ilaahay waddan hebel maa ugu tegaysaa dhagax meel hebel yaal maa ugu tegaysaa dhar aa qaadatid maa ugu tegaysaa madaxa iska xirtid iyo garaadaysid maa ugu tegaysaa waxaasna uguma tegaysid ilaahay wuxuu ku leeyahay waxaad igu imaan kartaa qalbigaada marka aad ereygayga ka rumaysid qalbigaada ereygayga masiixa oon soo diray oo daraadda aan usoo diray oo daraadda u dhintay ereygayga oo jirkaaga kale inta soo qaatay magaca ereygayga awood badan la wax walba aan ka sameeyo adiga aan kaa sameeyey jirkaaga oo kale intuu soo qaatay daraadda u dhintay wanqalka dembiyada aan u bixiyey dembiyadaada aan u bixiyey jacayl uu noo qaba ayuu ilaahay sidaas noo sameeyey marka waxaan idinkaga tegayaa nabadda masiixa dushiina ahaato ka fikir marka kitaabka quduuska akhriso ilaahay la tasho qof bini aadan la tashanin aniga la tashay qof kale la tashanin ilaahay la tasho kitaabka quduuska meel walba joogtid waad akhrisan kartaa waana heli kartaa asagoo luqadda soomaaliga kugu qoran marka soomaalida waxaan uga tegayaa waxaan ilaahay uga baryayaa nabadda masiixa inay dadkeena ay helaan oo ay ka xoroobaan shaydaanka ibliiska iyo cadowga ah oo dhibaatada aan dhammaanayn ku hayo markaas ayaad geli doontaa nolol run ah nabaday sidaas ayaan idinkaga tegayaa